dhacdooyin fara badan oo dalka ka dhacay gaar ahaan dhimashooyin fara badan inaan uga tacsiyo ummadda Soomaaliyeed iyo haladooda dadka dhintay ilaahayna waxaan ka baraynaa nabad waxaan rabaa si gaar ah inaan dul istaago arrinta ka dhacda Tawfiiq maxay ahaato runtii aadka u foolka xun dilku asbaab xun oo qof muslima in kabdaro loo dilay xunta ama qof walba oo bani aadama haddana dhaqankaas waa dhaqan aad u xun marka waa ka tacsiyeynaa dadkii mataqaanaa iyo eheladii oo ka geeriyooday ummadda Soomaaliyeed ee dareenkooda u dhaawacay waa uga tacsiyeynaa aadna waa u cambaareynaa waxaan leenahay waa fal aad u fool xun xilligiisii ay ahayd islaamku markuu yimid waxyaabo u soo baxa waxa kamid ah in qof ka fiican oo san jirin illa taqwada ilaahay maayna anagoo dhan Soomaaliya nahay qof ka fiican ugu ma jiro marka guur in dad loo dilo waa arrin aad iyo aad u fool xun ummadda Soomaaliyeed marka meel ay joogaanba arrintaas inay meel uga soo wada jeestaan oo arrin runtii dhaawaceeda leh iyadoo xilligan la joogo in ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda arrintan ka dhacan gaar ahaan magaalada Muqdisho oo caasimadii ummadda Soomaaliyeed ah marka culimada dhaqanka siyaasiyiinta in meel looga soo wada jeesto arrintaasna laga dabalgooyo dalka Soomaaliya sidaas aan soo jeedina aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.